السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن وناكسن داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta mudan halkan iyo sida tooska nooga dheexanaysaan huwa telefishinka sima kuna soo dhawaada qodobada wararka kuwa ugu doorka roon waxaana kamid ah dableyda canfarta ayaa saaka baar 3 subaxnimo weerar ku soo qaaday qabalaha qaraf maarayaha dhakhtarka weyn ee degmada Shinile ayaa wakaalada sima uga warbixiyay adeega isbitaalka qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan isugu soo laaban doonaa hadduu alla idmo isku soo noqod wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan aad sida tooska nooga dheexanaysaan waa telefishinka sima haatan warkii oo fidsan dableyda canfarta ayaa saaka baara 3 subaxnimo weerar ku soo qaaday qabalaha qaraf wakaalada wararka ee sima ayaa khadka taleefanka kula xidhiidhay goob jooge waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida xigta aad baad u mahadsan tahay bal magacaaga ii sheeg horta iyo meesha aad joogtid magacaygu waa Zakariya Muumin waxaan joogaa maartay magaalada Qaraf degmadaas aan ku sugan joogaa walaal waa tahay dagaalkii saaka ka dhacay ee khasaaraha lahaa sidaan wararka aan ku helayno si aad nugu xaqiijisid bal saaka imisadii ayuu dagaalku bilaabmay dagaalku saaka wuxuu bilaabmay 5 subaxnimo ayuu bilaabmay wuxuuna ka kala bilaabmay gaaniye meelaya iyo maartay maqorbaashi iyo ka kala bilaabmay sax dagaalku hadduu saaka subaxii bilaabmay imise qof ayaa ku dhaawacmatay imisaas ku dhimatay waxaa ku dhintay dadka waxaa dhintay 7 ayaa dhimatay maartay waxaana ku dhaawacmay 13 qof waa tahay dagaalku hadda ma joogsaday oo imisadii ayuu joogsaday dagaalku waqtigii galabnimadii ayuu joogsaday waa tahay dagaaladu hadda ka hor canfartu ay nagu soo qaadaysay waxay dadku ay moodayeen amba siday wax u wadeen waxay ahayd in magaalooyinkan digada ku teedsan la qaadanayo iyagu ay rabaan haddase waxaad moodaa in deegaankiiba ay soo galayaan arrintaasi bal sideed u aragtaa adigu wallahi saaxiib warartada ka hor waxa loo haystay dikadan inay maaragtay xafarta doonayso ay Itoobiyadan maaragtay diaylo boshahay balse laakiin imika xagga dunjir dikada dhowr iyo 60 baa laga tagay xaggana ilaa dhowr iyo 10 ilaa imika xafartii ma joogsan oo maaragtay dagaalkii way soo wadaa waana kilafkii waxay soo dhex gashay cid maaragtay wali caddaashay kala hortagtay oo maaragtay u hagar baxayso dagaalkiina ma arkayno saakada laftigeega xagga kale xoori ee degmada kale dunyar la yiraahdo dagaal baa ka jiray iyadana maartay warkeygii wali lama soo sinaa waan soo sirinaba la yiri marka arintani waxa moodaa maartay inay xanfarto meel ay ogtahay ay ku socoto amaba ay maartay erartii ay sheegatay ay ka runtahay dagaalka ay ku soo waa tahay wada hadallo ayay galeen kooxda TPLF iyo waliba Ethiopia waxaad moodaa in khilaafaadada in la soo xakameynayo arinta iyada bal canfarta iyo dadkan xoolo dhaqatada ay leenayso inay iyaduna ay nabad timaado bal sideed u aragtaa mar haddii wadankiiba uu kooxdii TPLF wada hadal la galay kolkii hore canfarta maaragtay waxaa maaragtay Itoobiya ay nooga xakamin lahayd ay nooga qaban lahayd TPLF bay dagaalku leeyahay maadaama TPLF la dileysay in maaragtay dhabarka lagu tagto way dileysay balse laakiin imika maadaama TPLF ay Itoobiya leeshisay waxaan islahayn haddii dhulka ayaa sida TPLF looga dhigayo la xakamin baan lahayn balse laakiin walaada waxa kameeyay maaragtay xililkii oo maaragtay baxayo oo dadkii maaragtay difaacayo iyadana maaragtay lama arkayo laakiin haddii caadi canfarta looga hortago oo la xoog in la iska difaaco awood dowladda Soomaaliya kale ee la saaro way iman lahayd nabadu balse laakiin meel ay ilka haysaba canfartani iyadoo maaragtay il bay haysaa wali hadana dagaalkiiga si wada waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay ay sax
maareeyaha dhakhtarka weyn ee degmada Shinile ayaa wakaalada Simo uga warbixiyay adeega isbitaalkan. Faahfaahin warbixintaas ku saabsan waxaa inoo eegaya wariyeena Ciise. dhibaatooyin badan oo ka jiray degmada Shinile dhanka adeega caafimaadka ayaa hadda waxaad moodaa inay soo gabaasmeen. dadka ku nool magaalada Shinile iyo agagaarkeyga ayaa adeega u soo doonin jiray magaalada Dirdhaba si ay dhakhaatiir uga helaan. haddase waxaad moodaa in arrintaasi ay soo afjarmatay. waxaan booqasho indheyn aan ku tagnay isbitaalka darajada koowaad ee magaalada Shinile. waxaan halkaasi wareysi aan kaga qaadnay Dr. Cabdilaahi oo ah maareeyaha dhakhtarkani darajada koowaad ee degmada Shinile. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. hadaanintii loo baahna isbitaalka waa darajada koowaad marka intii darajada koowaad ka badan bixiya hadaan marka qaybta bukaan socodka waa bixinaa qaybta bukaan jidka waa bixinaa qaybta degdega emergency waa bixinaa bukaanka degdega loo dhigana waa bixinaa qaybta hooyooyinka dhallaanka iyo carruurta waa bixinaa qaybta qalinkeena waa full functional again haddana qayb baan kusoo darno diyaarka nafaqadarrada maadaama hadda keen abaara iyo baraka iyo wax badan iska jiraan waxaan kusoo darnay qayb SCC la yidhaahdo oo ciyaalka idyar nafaqadarrada caanaha lagu sameeyo buskutka xanaanada lagu sameeyo xagga lagu xanaaneyn marka hosbitaalka kolley muddo yar oo 7 bilood aan gaarin ayaan u sameynay wax badan oo sanadka gudbinay waxaa hosbitaalkeena aad waxaan u faanaa farmasigeena oo kale waa farmasi aad u dhammaystiran boqolkiiba 90% ayaan bishii ugu horeysay 75% waa hortageen waan hagaajinay bishan haddaan jeedinay deganto 90% dawada laga helo hosbitaalka bukaan inuu dawada u bixin karaa darteed laboratory aad casriyaysan baan u farashaqeynay waxaana yaala qalab casri ah yaalo intaa meelo badan oo deegaanka kamida ama marka waxaan taasoo ugu talagalnay referral systemka inaan yarayno muhiimadeena waxay tahay hosbitaal la dhisay oo dadku haddana sii socdaan dadkii oo ayaa la wajah laakiin waxaan ka doorbidnaa adeegkii ay heli lahayd service ma heleen waxa dad horumar ilaahay macaanka saddexda bilood waan eegnaa waxyaabahan dadka madaliiska ku dhaca testosterone waxoogaas oo dhammaan jeeganayna muu yaala dhiigga la yidhahdo calculation profile la yidhahdo dhiigga jiraha kaana waan eegnaa dhiigga orgaan waxa la yidhahdo orgaanadeena keliyaha beerka waxaas oo dhan waa shay gudaheeda ku yaala kolley dad ay ka doon oo baalamayaal laboratory baalamayaal qalanto iyaga hadhowta loo faafaan si fiican loo faafaan jiro way joogi jiraan marka hosbitaalka waxaan adeeg dee dadka ku filnaa oo ka batay ma bixinaa maan kalo laakiin adeeg asaasiga u baahnay dadku waa bixinaa waxaa noo joogaa ilaa 6-7 specialist noo jooga oo hadda adeeg bixiya waxaa ugu horeeya ka dhallaanka iyo dhallaanka ayaa ugu horeeya gynecologist ayaa jooga waxaa jooga kale pediatrician ka ciyaar u jooga dhakhtarada soo takhasusay internist baa la yidhaha marka afka caafimaadka u jooga general surgeon loo jooga qalliinka takhasus loo jooga hal emergency surgeon baa loo jooga oo wixii qalliin degdeg u baahan oo dhan qabanin u jira qaybta lafahana anaga ahaan waan dhakhtarkii waan keenay laakiin qalabkii baa ayaan hadda gacanta ku haynin laakiin dhakhtarkii ahaan anaga loo jooga haddaan maanta hayno qalabka islaamaatada inuu shaqadii bilowdo sariirihiisi meesha ka dhigi lahaa diyaarinay marka hadda wuxuu sii sameeyay wax biyoga ilaaji oo jeeso dadka ugu duubaan jira haddaan taa u sameeyaan laakiin qalliinkii hadduu qofku u baahan yahay beri la gasho infection la sameeyo waxaas oo dhan maadaama qalab u baahan yahay qalabka waa naga dhiman كل حبس كعبات أنا بعيدين مهتمين إن شاء الله بسوينا
waa hagaag daawadayaal waa naga intaa warbixii aan idinku talagalnay caawa ee sida tooska idinkaga imanayay Sima TV warkan waxaa idinla socodsiinaysay anigoo Saynaba mar kale intaynu hawada ku kulmi doono waxaan idinku sii dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh